caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم داود يا صاحب يا كسو لوادا قربله تي في وادوغا براتين برنامج xiisa leh magacaygu waa Yaasiin Aadan Weheliye barnaamijkan waa arimaha bulshada barnaamijkani waxa maanta uga hadli doonaa Garbaweyn Hospital oo ismihiisii uu soo dhamaaday in muddo ahna uu sugayo in isbitaalkaasi la qalabeeyo hadaba sanadan 2024 waxa gudiga ku howlan dhismahaasi ay inoo sheegeen in la rabo in la soo gabagabeeyo lana qalabeeyo isbitaalka Garbaweyn Hospital hadaba mashruucan oo noqon doona mashruuc ay ka faa'iideystaan dadka deegaanka ru'aantiina ay ku helaan baahiyaha kaga maqan xagga caafimaadka in ay dadka deegaanka loo soo dhaweeyo mashruucaasina uu hirgalo mashruucan waxa in muddo ah dhismihiisii aad ka warhaysaan in haatanna uu soo gabagaboobay balse ay u laaban tahay qalabeyntii isbitaalka iyo in uu shaqo bilaabo hadaba qorshaha waxa uu yahay sanadan 24ka in la soo dhameystiro lana qalabeeyo una shaqo bilaabo hadii Ilaahay yiraahdo in uu shaqo bilaabo lana qalabeeyo waxa ay u baahan tahay in jaabka gacanta la galiyo yaa gelinaya mashruucani waxa ka qayb qaatay 3 group ayaa ka qayb qaatay hadaba 3daasi group waxa ay kala yihiin qurba joogta u dhalatay beesha Duduble ganacsatada beesha Duduble iyo waxa kale to la rabaa in ay ka qayb qaataan siyaasiyiinta beesha Duduble hadaba waxaan rabaa marka horeeto in halkan uga mahad celiyo qurba joogta beesha Duduble oo ru'aantii kaalintoodii ka soo baxday si weynna uga gacan geystay dhismihii isbitaalkan Garbaweyn Hospital ru'aantii amaan ay mudan yihiin qurba joogta Soomaaliyeed iyada oo ogsoonahay culeysyada ay hayaan qurba joogta Soomaaliyeed hadana waxa ay guraawsadeen in ay gacan weyn ka geystaan balantiina waa ay ka soo baxeen qarashaadkiina waa ay bixiyeen waxyaabaha kaleeto ee bilaha loo saarayna sida ay ahayd ayay u bixiyaan hadaba groupkaasi waxaan leenahay Ilaahay ha idinka ajir siiyo waa aad dadaasheen waxaana ka qayb gasheen dhismaha isbitaalka Garbaweyn oo noqon doona mashruuc ru'aantii baahiyaha ka jira deegaanada garable iyo agagaarkeeda ha qabtir doona insha Allah marka uu shaqo galo qurba joogta waad maadsantiin waxaan rabaa in aan u soo jeesto ganacsatada beesha Duduble oo ru'aantii iyana qaar kamid ah ay geysteen dadaal aan ru'aantii halkan lagu soo koobi karin dadaalkaasi oo la'aantiis aan isbitaalkaasi dhismihiisa xataa uusan hirgelin lahayn iyagana waxaan leenahay Ilaahay ajran ka siiyo waxa aad sameyseen waa wax dadkiina aad u sameyseen iyo lafihiina waxayna noqon doontaa kuwa aad adduun iyo aakhiraba aad ka faa'iidaan balse waxa jira ganacsato kaleeto oo iyagana balanqaad sameeyay ilaa bisha afraad sanadan waxa la rabaa ganacsatadaasi laguna adkeenaya in ay balanqaadkaasi ay ka soo baxaan ru'aantii lagu akiidinaya in ay tahay muhiim jiddan in ay balanqaadkaasi ay ka soo baxaan dhismaha waa dhamaaday qalabeyntii waa waxa aan ka hadlayno qalabeyntaasina waxay u baahan tahay qarash xoog leh ma aha wax fudud balse waa wax muhiim u ah in isbitaalka uu shaqo bilaabo hadaba ganacsatadaasi waxaan leenahay fadlan ilaaliya balanqaadkaasi waxaan idinka rajaynaynaa in aad ka soo bixi doontaan mashruucani waa mashruuciini dhismaha waxa loo isaan waa dadkiini lafihiini wax walbo oo aad ka geysataan meeshaasi waa waxaad adiga qabsatay
marka waxaan leenahay ru'aantii aad iyo aad ayaan idinku akiidinaynaa inaad ballamahaasi aad ka soo baxdaan. gruubka saddexaad ee aan rabo halkan baaq inaan uga jeediyo waa siyaasiyiinta beesha Duduble, heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba. degmooyinka guddoomiyeyaasha intaba kama maqna. waxaan leenahay waxaa loogaga baahan yahay inaad ka geysataan gacan weyn, inaad ka geysataan mashruucani wuxuu tusaale u noqon doonaa wax qabsiga dadka deegaanka iyo sida ay ru'aantii iskugu duuban yihiin wadajirkoodana waxa uu noqon doonaa mashruucan oo guuleysta. haddaba siyaasiyiinta beesha Duduble waxaa laydinku adkeynayaa inaad arrinkani aad guntiga u xirataan oo ru'aantii aad ka soo baxdaan qaybtiina. siyaasadda haatan ka hadli mayno, waxaan ka hadlayno waa siyaasiyiintana waxaan leenahay dadkiina iyo deegaankiina waxaad u qabataan waa waxaad qabsateen, baritoolana magac idiin noqonaya. dadka deegaankana ru'aantii ay kalsoonidooda ay idin siin doonaan haddii aad mustaqbalka cod u soo raadsataan. marka waxaan idinka codsanaynaa, waa codsi in aad ru'aantii aad walaalihiina iyo dadkii deegaankiina shaqadan ay haatan bilaabeen oo dadkoo dhan isku duwan yihiin inaad adinkana aad u noqotaan dad hogaaminaya oo aad ka soo baxdaan dhankiina. haddaba waxaan leenahay ha noqdo mashruucani mid guuleysta sanadan 2024. halka akoonka qarashkaasi lagu soo shubayo shaashada ayaan idin soo saari doonaa, waad arki doontaan. waxaana ru'aantii mahad gooni ah aan u celinayaa guddiga ku howlan dhismaha isbitaalka Garbaweyn, kuwii hore iyo kuwa haatan joogaba, oo ru'aantii shaqo muuqata ka soo qabtay, wax muudana haatan keenay. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo. dadkiina ayaad u shaqaynaysaan, shaqadiinana laba jibaara insha Allah. saaxiibayaal, barnaamijkan Garbaweyn Hospital waa barnaamij la rabo inuu tusaale u noqdo waxa aan qabsan karno iyo dadka aan nahay. haddaba waxaan rajaynayaa inaad arrinkaasi aad u lahaan doontaan fiira gooni ah oo aadan ka seexan doonin. haddaba intaasi ayaan saaxiibayaal ku soo gunaanadaya barnaamijkan. ha laga wada qayb qaato, qof walba jaabka gacanta ha geliyo, ha noqdo nin wax baxsada. adduun iyo aakhiraba labadaba waa idin anfici doontaa insha Allahu tacaala. saaxiibayaal, waa anigoo Yaasiin Aadan Weliye iyo Garabla TV oo idin leh sanad wanaagsan 2024. Allah ka dhigo mid amni iyo baraare wadajir wax wada qabsi aanu ku helno insha Allah. waa idin wada salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.